aad baad u mahadsantahay agaasimaha Somali Irish Media Kudul Muuse sad ka dhawaajisay dalkan Ireland waxa uu ku jira xayiraad muddo dhowr bilood ah oo kamid ah xayiraadihii ugu adkaa ee lagu soo rogo wadan ka tirsan Europe waxaana uu noqday wadankan Ireland kuwa ugu adag sababta loo sameeyay waxay tahay cudurkan coronavirus oo runtii dalkan Ireland dad badan ka laayay taasi waxay keentay markaas dawladdu ay u maareyso waa in aanay dadku isdhexgalin taasoo runtii ay talaabo weyn ay qaaday oo xagga dhaqaalaha wadanka runtii dhaqaale dooran weyn ay soo gaadhay oo dadkii shaqadii ay ka soo fadhiisteen xayiraadii ugu horeeyay la saaray waxay ahayd in aan dadka gudaha ay ka soo bixin laakiin waxa dawladdu si loo dabciyay arrintaas ay u qaybisay afar wajigii ugu horeeyay waan soo dhaafnay oo ahaa in qofku Soomaali ka ilaa 5 kilomitir laakiin imika wajiga labaad ee ay dawladdu bilowday waxa kamid ah in 6 qof in ka badan ay isku iman karaan oo ay kulmi karaan iyadoo lagu dhiirigeliyay inay isku jirsaan ilaa 2 mitir ay hadiyo goorna ay xidhaan gloveska iyo maskaba xidhaan oo afka ay duubtaan sidoo kale waxa la fasaxay ilaa 5 qof inay isku iman karaan oo ay meelaha jimicsiga iyo goobaha ay tagi karaan sidoo kale waxa dadka geeriyaha tagaya waxa ogtahay dadkan qofka dhintay inaan la tagi jirin laakiin ilaa 5 qof baa ka qayb gali kara geeriyaha tagi kara iyo ama meelahan la isku yimaado isku iman kara meelaha dukaanada waxa la leeyahay waxa la furayaa 15 June oo dib ayaa loo furayaa meelahaasi si iyagana meelaha waaweyn ee cuntooyinka laga gato oo iyagu runtii markii hore qaarkood ay jireen laakiin iyagana imika si caadi ah ayaa loo furayaa dhaqaalaha wadanka runtii moodaa inuu soo tartarayo oo uu soo ayraayr u furfurmayo sida ogtahay kudan cudurkan coronavirus-ku dadka uu faraha baashku ay waxay hayeen dadka waaweyn ee da'doodu ay ka sareyso 70 jirka dawladdu markaa imika waxay ogolaatay in dadkaasi la booqan karo oo loo tagi karo oo magaranayay loogu tagi karo guriyahooda iyadoo dawladdu haddana ay xoog saartay in dadku ay xidhaan gloveskaas iyo afka ay duubtaan oo ay 2 mitir dadkaasi ka fogaadaan maadaama looga baqayo dadkaasi inay xanuunka u nugul yihiin dadka kalena ay soo qaadaan tukaanada yaryar baa runtii la filayaa inay furmaan haddaba wajiga saddexaad ee imika la filayo in marka ka laga taga labaadka saddexaadna waxa uu bilaami doonaa 9 June taasoo qayb kamid ah wajigii afraad oo isna loo filayay inuu bilaamo 20 July hore loo soo dhigay qaarkood sida tukaanada meelaha lagu cabo oo kale sharaabada iyo baararka oo kale kuwaas laftooda waxa la filayaa in la furo iyaga laftooda iyo hoteeladaba waxaana runtii la rajeynayaa inay noqoto wajigii saddexaad ee lagu hirgelinayo in la dabciyo xayiraadda dalka la saaray dalka Ireland gudihiisa wajiga saddexaad waa la isku socdaali karaa oo taa xayiraadii waa la qaadi karaa oo xayiraadii waxay ahayd markii hore inaan qof gobolkiisa dhaafin laakiin imika wadanka Ireland oo dhan buu qofku u socdaali karaa dibaddana waa uga bixi karaa wixii ka dambeeya 20 June arinta kale muhiimkii waxay tahay in timajarayaashii iyo magaranayay meelihii salonka oo dhan iyagana magaranayay ay ahaanayaan kuwa xidhan ilaa 20 July kuwaas runtii stage ugu dambeeya noqonayaan oo timajaraha waxa la furi doonaa 20 July oo wuxuu noqon doonaa wajiga ugu dambeeya haddaba Soomaalidu waxay aad u dhaga taagleynaysaa oo ay dhagta u taagaysaa waxa kamid ah masaajidadii runtii iyo meelihii lagu cibaadeysanayay iyagu waxay markii hore hayeen in laga dhigo wajiga afraad laakiin hore loo soo dhigay oo wajiga saddexaad ba ayaa laga dhigay marka bisha June 20keeda bisha June 29keeda ayay masaajidada la furaya insha Allah oo ay noqonayaan goobihii lagu cibaadeysanayay gooba caadi u furan qof kasta tagay iyadoo oo dawladdu dhiirigelinayso dadka masaajidada ku tukanaya kiniisadaha inay kala fogaadaan arrinta kale meesha jirta waxa weeyaan dad badan oo Soomaaliyeed baa runtii sanad kasta sharci ka dhaca oo sharciga loo cusboonaysiiyay markii hore 2 bilood baa la cusboonaysiiyay bishii March ilaa iyo bishii May 20keedii haddana May ilaa iyo July 20keeda ayaa haddana la cusboonaysiiyay marka qof kasta oo sharci ka dhacay intaasi waxa uu xaq u leeyahay in la siiyay oo automatic si toos ah qofka sharci u haysta ilaa 20 July marka dadku inay ka warwarin wixii ka dambeeyana dadku kolba wixii soo kordhana dadku waa la socodsiinayna insha Allah